توازن الحياة أنت رقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيت توازن الحياة أنت رقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيت فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت فيا أزيان كل زين بك يزين كل وقت فراشة بكل asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhawaada channelkeyga iyo video cusub. sida aan horay idinkugu sheegay buug waxaan aqrinoyaa oo gentle discipline la dhaho. hataa videoyaal hore aan kasoo qaatay waa kana buuga. so buugan insha allah aqrinoya so everything markaste chapter aqri camal waa soo summarize gareynaya then video kasoo sameynaa si aa idinkan uga faa'iideysatiin waxa ani ka faa'iide insha allah. labadii video ugu dambeeyay oo ayaamo hore aa soo geliyay kuwii kasii horeeyay waxaa ka hadalnay maxaa la dhihi jiray ishag istaaliyaasha oo cayaalka oo maxaa la dhihi jiray like oo loo tarbiyeeyo. haddaadan daawanin linkiga hoosta soo dhigaya waa u noqon kartaa, waa daawan kartaa. so hadda intaas videoga kasoo sameeyay waxaa ku xigo jabtarka ugu horeeya oo ka hadlayo cayaalka waay u misbehave garayaan. so maanta kaas rabaa inaa bilaabo ma wada dhameynayo liano a lot of information ku jirto and I tried inaa oo aad u summarize gareeba at the same time waxyaala is dhehaysid muhiim waaye aad jiraan. so marka insha allah maanta waxaa bilaabaa jabtarkaas ugu horeeyo insha allah. intaanan oo guda galin topica maxaa la dhihi jira ha ilaawin inaa u share garaysiin dadka oo waalidiinta oo ka faa'iidi kara videoyaashan and then inaa subscribe saartid si aa every time a video soo geliy si aa u ogaatid oo maxaa la dhihi jira aa u daabatid insha allah. haddaa ka heshidna like saar, haddaa oo su-aale or anything qabtidna commentiga kusoo qor insha allah. so marka jabtarkan wuxuu ka hadlaya cayaalka wax u keeno inay misbehave garayaan ama inay edabdaro sameeyaan. si aad u tarbiyeysid cayaalka tarbiyada saxda koodii waxaa u baahantahay inaa ogaatid waxa u keeno cayaalka in ay misbehave garayaan ama ay edabdaro sameeyaan. markaas waxaa xalin kartaa oo maxaa la dhihi jiray like edabdarada ama ka joojin kartaa. marka in order u baratid waxa u keeno cayaalka in ay misbehave garayaan waa in kabihii oo cayaalka xiratid ama cayaalka positionkooda inaa istaagtid. liano haddaa oo macalin tahay oo aa maadab dadka baroosid maadadaas waa inaa cilmigeeda leedahay oo maxaa la dhihi jira isheeg markaasa oo si fiican oo dadka wax u bari kartaa. so in order cilmigeeda heshid waxa u baahantahay koofidi oo ardaynimada inaa xiratid. so marka sidaasoo kale waa in oo booski oo cunuga aadid in order u ogaatid maxaa la dhihi jira isheeg waxa u keenayo cunugaaga maxaa la dhihi jira edabdarada ama inuu misbehave gareeyo. adiga oo qof weyn kugu dhaca tantrum waxaa waaye marka oo emotionkaaga aadan celin karin, controli kareenin, aadan iscelin kareenin. usually anaga markii waxaasoo kalena qabsado ama misbehave gareeno even though aan u haysanin inaa oo misbehave gareysaba laakiin waa the same emotion uu cunuga maraayo. waxaa dhahnaa waa xanaaqay, waan iscelin waayay ama dad oo naga mid ahna like misbehaviorkaas oo cunuga usually oo lagu qabsanayo
waxa u aragnaa qof oo like wax fiicana u aragnaa. hadduu qofka xanaaq badan yahay like emotionkiisa uu celin kareenin. so marka waa the same thing waa cunugan wuxuu maraya markuu oo qeylinayo, markuu oo maxal dhihi jira isha wax kaa maqleenin, just emotionkiisa uusan controli kareenin. marka waa in aa horta ogaatid waxaan cunugan misbehaviorku sameynayo ama edabdaradu sameynayo maxal dhihi jira waxaa waaye like emotionkiisa uusan controli kareena u keenayso. qof kastana maxal dhihi jira age kastaa joogtid, ama weeno ama yarow ama teenager ahow, qof kasta wuxuu leeyahay maalimo oo maxal dhihi jira isheeg uu emotionkiisa celin kareenin, uu iska xanaaqayo oo like waxaa waaye nolosha oo bini-aadanka wax ka mid waaye. so marka anaga markaa oo waxa sameyno uma aragno wax oo like saas big deal u laakiin cayaalka markay sameeyaan edabdaro iyo waxaas dhahnaa. even though dadka dhan waxaaladahaas maraan, laakiin dadka way ku kala fiican yihiin sida ay ugula dhaqmaan ama u controlaan ama ugula diil gareeyaan maxal dhihi jira markay oo maxal dhihi jira oo lose gareeyaan temperkooda ama misbehave gareeyaan, si u dhaqmaayaan dadka, si u kala controlaan way kala duwan tahay. cunugana zaaid usii yaryahay, soo marka like maxal dhihi jira ma controli karo. laakiin anaga dadkeena kuwa naga mid waxaa laga yaabaa in uu oo iscelin karo markuu oo maxal dhihi jira isheeg uu xanaaqo ama waxaas. so marka dadka waa loo kala duwan yahay sida oo loola diil gareeyo emotionskaas. cayaalka waxa u keeno maxal dhihi jira inay misbehave gareeyaan ama edabdaro ay sameeyaan, waxay u kala baxaan labo, neurological trigger iyo physiological trigger ay u kala baxaan. waxyaalaha trigger waxaa waaye waxyaalaha oo kicin karo ama keeni karo maxal dhihi jira isha waxaa kicin karo like dabeecadahaas oo like xunxun, like sida hadda inay misbehave garee camal. waxyaalaha keenaya waxa oo ka imaan karaa maskaxda, ama waxay ka imaan kartaa wax oo physically oo like maxal dhihi jira jirkada oo uu ka imaan karaa. so marka neurologicalka kama hadleeno maanta insha allah jabtarada soo socoto uu buuga kaga hadlaya. so marka kama hadlaya kaas maanta waxa oo like waxaa bilaabaya kan oo physiologicalka like oo jirka ku saabsan oo u keeni karo cayaalka in oo misbehave gareeyaan ama maxal dhihi jira edabdaro sameeyaan. liano maskaxda partka weynka uu ka yahay, liano maskaxda bini-aadanka cunuga yariiska maskaxdiisa iyo qofka weynka maskaxdiisa isku mid ma aha. I think kan mar horena waa kasoo hadlay. so maskaxda oo cunuga maxal dhihi jira iyo qofka weynka isku mid ma aha, especially meesha oo emotionka oo controlay iyo waxaas cunuga wali like si fiican uma soo develop gareysmin. so marka taasa u keenayso in maxal dhihi jira isha cunugan uu zaaid isku celinin dan dadka waaweynka. la even iyadoo ay saas tahay dadkeena waaweynka badana most of us like maxal dhihi jira isha way adag tahay in iscelisid oo emotionkaaga controlshid, unless maxal dhihi jira practice gareysid ama maxal dhihi jira like practice ku sameysid, then practice makes perfect. so like the more like oo wixii u baratid inaa emotionkaaga ilaalisid iyo waxaas, the more oo maxal dhihi jiray controli kartid emotionkaaga. so marka cayaalka ayaga like
maba u develop gareysminba meesha oo like oo laga controlayo emotionska iyo so marka kaas waxaa si fiican kaga hadleynaa like jabtaryaasha soo socdo oo buuga kaga hadlaa soo markaas insha allah ka hadleyna laakiin hadda waa inaan waxaa ku focus gareyneynaa physiologicalka kan oo jirka waxa oo keenaya inuu cunuga u misbehave hooyo haddaa tahay ama waalid haddaa tahay hooyo ama aabo cunugaaga waxaa muhiim markasta inaa ogtahay waxyaalaha u keeno inuu oo maxal inaa u fiirsatid cunugan goormuu oo maxal dhihi jira isheeg edabdaradiisa badanta ama misbehaviorkiisa badan yihiin naagta oo buuga qorta waxay dhahay cayaalkayga cranky waxay noqdaan camal maxal dhihi jira markii uu qofka dabeecadiisa aysan saxsaneeno like oo si weird camal u dhaqmayaan so waxay dhahay usually waxaa waaye markii oo maxal dhihi jira baahi heeso markii oo tired yihiin daalan yihiin iyo markii oo maxal dhihi jira isheeg markii gaajo hees markii oo daalan yihiin iyo markii oo screen time badan qaateen like camal markii oo waqti badan tv-ga u jeedaan iyo waxaas so tv-ga iyo like lightka oo kasoo baxayo usually la dhahaa keeno maxal dhihi jira qofka maxal dhihi jira inuu oo cayaalka inay more cranky noqdaan iyo so marka waxay dhahday iyo screen time badan markay qaataan iyo haddii oo maxal dhihi jira asxaabtooda wax isku qabtaan camal ama iskoolka wax qalad sameeyeen oo wax qalad ay kasoo sameeyeen soo marka mararkaasoo kale waa fahmaa markii oo camal sidaas ay u dhaqmayaan soo marka hooyo markaad horta part weyn waxaa ka inaa cunugaaga ogtahay muxuu oo dabeecadiisa ay ku bedelmataa liano taas haddaa ogaatid markaas waxay ahaaneysaa inaa oo moor ooga fiirsatid waxyaalahaas inaa oo ka yareysid soo marka taas muhiim waaye marka muhiim waaye inaa oo ogtahay waxyaalahaasoo kale cunugaaga markuu oo maxal dhihi jira sameeyo inuu maxal dhihi jira uu noqdo behaviorkiisa ay xumaato soo naagta waxay dhahdee like taas waxay iga saacideyna camal inaanan oo personally u qaadanin cunugan haddii oo maxal dhihi jira uu misbehave gareeyo ama uu hadalkii maqli waayo liano waxa u keeneyso maxal dhihi jira waxaas oo ama intuu daalan yahay ama screen time badan uu qaatay ama iskoolka uu maalintaas oo maxal dhihi jira isheeg bad day camal kusoo ku lahaa soo marka maxal dhihi jira personally ma u qaadanayo liano waa ogtahay cunugan maxal dhihi jira isheeg waxaa ka keena haddaa mar ogtahaybo sida ugula dhaqmaysid way bedelmaysaa soo marka inaa ogaatid muhiim waaye maxal dhihi jira isheeg si aa u tarbiyeysid cayaalkaaga sida saxda cunuga like way u fiicnaan lahayd inuu oo maxal dhihi jira uu controlo emotionskiisa ama uu iska ilaaliyo waxyaalahaas si uu maxal dhihi jira isheeg camal behaviorkiisa u bedelmin isagoo oo like without waalidka halbigiisa laakiin ma awoodo marka cayaalka ayagoo og dabeecadaha qaarkooda inay saameyn xun ay leeyihiin sidaasay tahe iskama celin karaan ayagoo maxal dhihi jira without waalidka halbigiisa soo marka maxal dhihi jira isheeg way jeclaan lahaayeen cayaalka inay oosan sameynin dabeecadahaas xunxun laakiin maskaxdooda aysan kontarooli kareenin emotionkaas aysan kontarooli kareenin oo u keenayo in wixii ay ku dhaqmaan marka haddaa oo waalid tahay waa inaa oo ogaatid waxa u keenayo haddana waxaas oo u keenayo cunuga hadduu sameeye waa in adan u qaadanin cunuga inuu oo kugu xaasidnimo inuu u sameynayo
oo personally aadan u qaadanin laakiin aa u qaadatid cunugan waxa u keenay waxaas uu sameeyey aa u keenay maxaa la dhihi jira inuu saas u behave gareeyo marka waxyaalaha cayaalka oo maxaa la dhihi jira misbehaviorkooda kicinaya triggersyaasha oo kicinaya oo laakiin markii loo fiiriyo jir ahaan oo like physiologically oo maxaa la dhihi jira cayaalka oo trigger gareynayo misbehaviorkooda maxaa la dhihi jira isheg waxaa waaye wax badan waaye waxana ugu horeeya waxaa waaye dietka like cuntada cunuga uu cunayo maxaa la dhihi jira isheg way u keeni kartaa maxaa la dhihi jira isheg in uu misbehave gareeyo cunuga marka kaasa ugu horeeyo waxa ku xigo lack of sleep cunuga hadduusan hurdo badan uusan helin way u keeni karaan so insha allah next video waa kaga hadlaya kuwaas kale maanta intaana kusoo joojina marabin inaa videoga zaaid u dheereeyo maxaa la dhihi jiray marka maanta waxaa ka hadalnay haddaa cunugaaga rabtid inaa si fiican u tarbiyeysid dan waa inaa oo kabihiisa xiratid qof like wuxuu sameeyo waxaa fahmi kartaa markaa booskiisa gashid soo marka haddaa oo macalin tahe oo maado dhigoosid waa inaa maadadii aa dhigoosid inaa ka seesid waay liano haddaadan ka seenin maxaa la dhihi jira isheg wixii si fiican uma bari kartid si aa u baratidna waa inaa oo arday soo noqotid soo marka maxaa la dhihi jira sidaasoo kale waalid haddaad tahe waa inaa kabihii cunuga xiratid oo maxaa la dhihi jira booskiisa fiirisid si aa oo u xalisid problemkaas moslina dadka oo maxaa la dhihi jira expertska oo like tarbiyeenta cayaalka iyo waxaas usually maxaa la dhihi jira waxaa lagu focus gareeyaa solutionki iyadoo oo la raadinin problemka liano solutionka haddaa kaliya haysatid disencouragement kugu ridaysaa like maxaa la dhihi jira wixii hadduu shaqeyn waaye maxaa la dhihi jira waxaa dhehaysaa waxaa ma shaqeynayo laakiin haddaa ruutka oo problemka aa ka seesid aa ogtahe cunugan maanta hadduu oo cunto saas uu cuno like markaasoo kale uu oonaya wax badana uusan wax maqleynin haddii oo maxaa la dhihi jira tv-ga wax badan uu ujeedo uu daawadana maxaa la dhihi jira isheg also inuu misbehave gareeyo u keenaysa dan waxaa sameyn kartaa markaas wixii problemkiyaa ka yareynaysa si aa maxaa la dhihi jira isheg lifekaaga easy uga dhigtid cunugana aadan mar badan aadan ugu qaylinin maxaa la dhihi jira isheg bini aadan waaye wixii maxaa la dhihi jira cunuga marmar wuu misbehave gareynaya liano bini aadan kaste way ku dhacdaa waxaas soo marka inaa ogaatid le cunuga meeshi oo maxaa la dhihi jira waxa u keenayo aa zaaid muhiim u ah si aa adiga iyo isagaba oo maxaa la dhihi jira lifekiina easy u noqdo soo marka intaasa oo ku dhameynaya insha allah videoga soo socdo either dietka keliya ka hadlaa hadduu wax badan noqdo ama isaga dietka iyo waxaa ka hadlaya topic kale maxaa la dhihi jira isheg insha allah haddee oo like oo videoga oo ii gaarayo insha allah marka waxaa filaya in aa wax ka faa-idaan even hataa one point hadduu noqdo videogan ka faa-ide maxaa la dhihi jira isheg aana cayaal haysatid isku taraagaray in aa oo intaas ku dhaqantid like maxaa la dhihi jira in aa u fiirsatid cunugaaga waxa u keeno most of the time inuu misbehave gareey inaa ka fiirisid maxaa la dhihi jira isheg oo wixii aa maanta soo sheegay I hope inaa wax ka faa-ide aa ku dhaqmaysid inuu noqdo insha allah ilaahayna hanoo fududeeyo inaa wax ku dhaqantid waxa sheegidiisa ama maxaa la dhihi jira dhageysigiisa easy waaye ama dhihidiisa isheg waa sameynaya like easy waaye laakiin in aa
ku dhaqantid waxay u baahan tahay wax badan. So marka ilaahay hanoo fududeeyo. Until next videona waxaan idhahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. hana ilaabin haddaa videoga ka heshay like saar. haddaa su-aal qabtid ama wax aadan fahmin oo videoga ku sheegay commentiga igu soo qor. maxaan dhihi jira ii sheeg subscribe saar haddii si markasta u aragtid markaa wax oo soo geliyo asxaabtaada oo waalidiinta ahna la sheer gareen si ay ayagana kaga faa'iideystaan insha allah. buugan aniga akhrinayo so anina waxaa ka faa'iidaya inaa idinkana idin faa'iideeyaa raba, anina motivation ii noqonaysaa. so insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.